بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وسلم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته waxaa inoo rahmanaa su-aashii afartanaad ee ahayd suuradda loo yaqaan caruus alqur'aan suuraddaas waa arraxmaan. haddana waxaan gelaynaa tobankii shanaad ee su-aalihii inoo soo socday qur-aanka kariimka ahaa. su-aashu waxay leedahay kow iyo afartanaad, muxuu yahay qur-aanka kariimka ah kelmadda ugu dheer? muxuu yahay xarafka kelmadda ugu dheer qur-aanka kariimka ama ereyga? ereyga qur-aanka ugu dheer waa kelmadda faasqaynakumuuhu oo 11 xarafa. su-aasha 42aad, sheeg suuradda qur-aanka kariimka ka mida oo 2 bisin ku jiraan. sheeg suuradda qur-aanka kariimka ah oo 2 bisin ay ku jiraan. suuradda keliya ee 2 bisin qur-aanka ku jiraan waxaa weeye suuratu naml. su-aasha 43aad, sheeg suuradda u shafeecda qofkii akhriya lagana ilaaliyo kana ilaalisa cadaabulqabriga. sheeg suuradda u shafeecda qofkii akhriya kana ilaalisa qabriga cadaabkiisa. suuraddaas uu qofkii akhriya u shafeecda cadaabalqabrigana ka ilaalisa waxaa la yihahdaa suuratu lmulk. 44, ma taqaanaa suuradda haddii lagu akhriyo guriga uu shaydaanku ka cararo? ma taqaanaa suuradda haddii guriga lagu akhriyo uu shaydaanku ka cararo? suuradda markii guriga lagu akhriyo oo shaydaanku ka cararo waa suuratu lbaqara. su-aasha 45aad, sheeg saxaabiga magaciisa keligiis lagu sheegay qur-aanka. sheeg saxaabiga magaciisa keligiis lagu sheegay qur-aanka. saxaabiga keligiisa lagu sheegay magaciisa qur-aanka waa zayd ibnu xaaritha radia allaahu canhu. 46, maxay tahay mucjisada ugu weyn ee la siiyey nebigeenna? maxay tahay mucjisada ugu weyn oo la siiyey nebigeenna? mucjisada ugu weyn oo nebigana la siiyey waa qur-aanka kariimka ah, kaasoo caajis geliyey in isaga wax la mida ama waxa ugu yar oo qur-aanka ah in lala yimaado ay dadkii ka caajiseen, insigii iyo jinnigiiba. 47, intee mar ayaa nebi moxamed magaciisa moxamed qur-aanka lagu sheegay? intee mar ayaa qur-aanka dhexdiisa nebi moxamed magaciisa moxamed lagu sheegay qur-aanka sala allahu calayhi wasalam? nebigeenna magaciisa moxamed qur-aanka 4 mar oo keliya ayaa lagu sheegay. 4 mar oo keliya ayaa lagu sheegay. 48, su-aasha 48aad, magaca axmed oo qur-aanka kariimka ku jira yaa laga wadaa? magaca axmed oo qur-aanka kariimka ah ku jira yaa laga wadaa? magaca axmed oo suuratu saf ku soo degay oo qur-aanka ka mida waxaa laga wadaa nebigeenna calayhi salaatu wassalaam. su-aasha 49aad,
ibliis ayaa abu hureyre wuxuu baray aayaddaas oo ah mid wax badan uu ka faa'iiday. maxay tahay aayaddaas? ibliis ama shaydaan ayaa abu hureyre goor habeena wuxuu baray aayad qur-aanka ka mida oo uu yidhi haddaad akhrisatid shaydaanku waa kaa dheeraanaya. maxay tahay aayaddaas? aayadda uu ibliis baray abu hureyre goor habeena waxay tahay aayatulkursi oo qofku hadduu akhriyo shaydaanku uu ka dheeraanayo habeenkaas. su-aasha kontonaad, sheeg suuradda si cad uga hadashay habeenkii nebigeenna la dheelmay calayhi salaatu wassalaam. sheeg suuradda si cad uga hadashay habeenkii nebigeenna la dheelmay. su-aashaana adaan kuu daynayaa sidii kuwii hore kale. waxaadna iigu qoraysaa kommentiga ama tacliiqa. jawaabteedana waxaad ka heli doontaa xalaqada soo socota bilowgeeda. intaas ayaan ku soo gabagabaynayaa maanta. wallaahu subxaanahu wa tacaala aclam.